dhaxalka xun ee Soomaaliya ka heshay colaadinta iyo dulmiga ay la daba socoto Somaliland waa qoraal aad u xiiso badan oo qoray siyaasiga weyn qarannimada u difaaca Somaliland siyaasiga Cabdullaahi Xamdulle waxaana ku baahiyay bartiisa Facebook qoraalkaas ayaa u dhigan sidan in badan waxaan idiin soo tabiyay dhaxalka xun ee ay Soomaaliya ka heshay colaadinta xaqdiga iyo buuqdiga iyo dulmiga ay la daba socoto ummadda Somaliland oo ah kuwa abaal aanay idina suquurin u galay Soomaaliya haddaba waxaan mar iyo laba idiin soo bixiyay in ay Soomaaliya hore uga dhaxashay xumaantii Somaliland ka qalabsatay ee ay abaal celin uga dhigtay dowlad la'aanta adduunkeeda looga dawro waxaan idin xasuusinayaa saadaasha iyo qodoroska aan tibaxay inay tahay wadada xamaanta iyo cadaawadda ee ay Soomaaliya ku sii hayso in ay dhaxalkeedu noqon doono in ay Soomaaliya ku dambayso dal la'aan waxa muuqata inay Jubbaland ka mid noqon doonto Kenya mustaqbalka dhow koonfur galbeedna ay noqon doonto Itoobiya ka mid noqonayso Puntland iyo Somaliland way ka madax banaanaan doonaan dhacdooyinka dhacay ee aan la xusayo u baahan in lagu cibro qaato Ilhaan Cumar ayaa tidhi iyadoo oo kibir ka hadlaysa kowa Soomaaliya sheegta iyadoo Somaliland uga jeeda maanta waxay u dhowdahay haddii ay xarig ka baxsato in la soo istaafuriyo sidaas la mid ah gobolka Minnesota waxa uu ahaa meelaha dadka reer Soomaaliya ay ku badan yihiin ee colaadda iyo xumaanta Somaliland laga soo alifo maanta waxa ay leeyihiin meel ay galaan waa taala daba dhigtay askarta cunsuriga ah ugaarsanaysa waxa iyana u baahan tahay in aynu iftiimino dowladda Soomaaliya waxay ahayd mid ku jirto gacmada horsiga adduunka iyo iyana maanta waxa laga joojiyay saacadaha Soomaaliya waxa ay ku sii shaqaysaa aaya la'aan iyo mustaqbal madow sidaa daraadeed aniga oo aan ahayn qof dhibta gaadhay Soomaaliya ku faraxsanaya in ay meesha ka baxaan laakiin maanta iyo jasaa'ideedu waxa ay tahay wanaagga jasaa'igiisuna waa wanaag sida la noo sheegay waayo waxa aynu ka dheregsannahay in daa'iman xumaan iyo cadowtimo iyo dulmiga bulshada Somaliland waanay ka waantoobi waayeen dhaxalkooduna way heleen haddaba wax lala yaabo ah kuwa u dhashay Somaliland ee meelaha sidaas ah daba socda ee raalli ka ah inay dalkooda iyo dadkooda ku noolaadaan xagta hoosteeda in lagu hayo ee ku sii faraxsan noocaas ee yiraahda walaalaheenna Soomaaliya iyana waxa ay dhadhamin doonaan maanta ay markasta dadkooda iyo dalkooda duducayaan shakhsi way asiibaysaa jamac ahaanna way u helayaan wabillahi tawfiiq sidaas ayuu kayd ku soo afmeeray qoraalkiisa ku mahadsantahay inaad ka mid tahay daawadayaasha Xogreeb TV ka mid noqo kumanaanka qof ee ku taxan Facebook-geena Xogreeb follow soo dheh oo nagu soo biir sidoo kalena ha ilaawin share tayo comment kuwa noo mihin daawade waad ku mahadsantahay sida aad noogu xidhan tahay